الله الرحمن الرحيم ولي waxaa active noo casharadii aan ku baranayna cookbooks iyadoo aan sii marayna lesson 13 casharkii 13aad horay waxaan u soo qaadanay IT certification video training casharadan oo internetka laga heli karo oo dadweynaha Soomaaliyeed loogu talagalay haddana waxaan sii maraynaa buugga accountiga inaan qaadano account cookbooks inaan qaadano marka casharadii barashada oo inoo ahaa oo aan ku baranayna cookbooks ayaa weli ku jirnaa marka lesson baan u arkaan doonaa si fudud sida aan ugu barano marka lesson walba si baan u qaadanayna marka lessonadana by order baan ka dhiganaynaa si ay isugu xigaan marka page-keeni baan soo galaynaa marka waa muhiim jiddan taas marka IT certification video training round soo qaadanay account certification video training haddaan qaadan doonaa waana direct number waa la soo xiriiridii la soo xiriiriyay casharadan ardayda iyo dadweynaha jecel marka waa muhiim jiddan taasi marka waxaan soo baranay casharo badan waxaan iska noo imanay reports kala duwan customer report waxaan noo iman doonaa employee inaan set up gareyno iyo reportkiisi waxaan noo iman doonaa reportkii la qurxinayay inaan gudbino iyo waxaan noo iman doonaa inaan reportyo laba vendors report iyo customer report aan sameeyno anagoo ku dari doono formatting cookbooks aan u qurxin lahayn cookbooks kan wax ku beddelin casharadana isku soo gunaanadmayaan mar haddaan sii marayna lesson 13 marka waa muhiim jiddan marka waxaan baran doonaa qasnada cookbooks oo isticmaalo oo gaarka ah oo lacag ku sii rido inta aad bankigaaga intuu soo gudbin qasnad oo sii marto lacagta ayaan arki doonaa waxaan kaloo arki doonaa sidaan transfer oo isticmaali lahayn oo sida cookbooks dadka quburada ku ah waxay isaga dhex xawlaan lacag marka saasna waa baran doonaa marka waa muhiim jiddan taas waxaan soo gudgalayaa cookbookskii waa kan waan ku guud jirnaa package-kiina ayaan ku guud jirnaa oo casharkan ku sameynayni marka waa muhiim jiddan taasi marka waxaan baran doonaa banking baan dooran doonaa waxaan dooran doonaa make deposit fund qasnada cookbooks oo lacagta sii dhigayo inta markaan lacagta aan xawilno ama aan bixino lacagaha waan lacagta aan bixinayna aan jarayni oo jeegaga ah weli maysan waxay lacagaha anaga noo soo dhacay weey qasnadan ayuu ku haynayaa marka payment method lacagaha deynta ku maqnaa markaan qaban qasnadan ayuu ku ridayaa qasnadan marka waan ka bedeli karnaa oo payment method-ka ay ku dhacdo oo halkaan waxaan ka dooran karnaa jeeg waxaan ka dhigan karnaa bangigeeni baan dhigan karnaa cashkeeni meeshaan dhiganayni baan dhigan karnaa marka waxaan anaga hadba noo taallaa qasnadan meeshaan waxaan ka dhigi lahayn marka waan baranaynaa taas oo ku select gareynaynaa select macnaha anaga ay noo taallaa meesha kale aan ku shubi lahayn lacagahan markaan aan u dirsanayno ama aan isticmaalayno lacagtan oo aan dhihi karno halkaan markay meesha ay noo tahay anaga tabiska dooran doono hadda wuxuu noo doorayaa asiga halkaas noo dhigayaa all tabis way noo saaran tahay laakiin anaga halkaan waa kasii xulan karnaa waxaan dhigan karnaa meeshii aan doorno mastercard haddii aan leenahay visa card haddii aan leenahay haddii bangigeena aan dhigayno annaga markaas ay noo taallaa wixii kaasha meeshaan ku shubi lahayn iyo adar haddii aan dooranayno marka waa muhiim jiddan taas waa ka noqonayaa tan taas waa ku baranay tabiska marka kuwan tig baan saarayaa bangigeyga ayaan u wareejinayaa waxaan qaadan doonaa sida lacagta cookbook la isaga dhex xawilo marka okay baan leeyahay marka waa okay gareynayaa marka waa sidoo kale gareynaya halkaan ay lacagta kusoo dhacdaa bangiga dahabshiil wareej baan leeyahay depositka aan ku sheegayo waa kan halkaasuu soo gelinayaa memi waa raacin karnaa marka account-keena deposit to dahabshiil baan leeyahay ku shub lacagtaas waana lagu shubayaa safe new baan leeyahay haddii aan ku kala raadiyo waa isku dayayaa haddii kale ku kala nooma jiraan waa soo wada qaadnay waa iska xiraynaa okay good waxaan sameynaynaa marka transfer see loo sameeyaa how to set up transfer see loo sameyn karaa marka banking baan tegayaa transfer baan tegayaa transfer funds baan tegayaa waana lacagta qaabka la iskugu xawilo cookbooks dhexdiisa anagoo ku jirno marka transfer funds waxay tahay qaabka anagoo aan tegin meel kale oo anagoo aan aadin oo shaqo kale aan qaban oo meel kale aan aadin ayaan cookbook dhexdiisa lacagta isaga dhex xawilaynaa marka bangigeeni baa imaanayo dadka milkiilayaasha lacagta markay ka qaataan halkaan ayaa ka siin kartaa oo hadhow dib baa ugu qoran kartaa matalan ba nimanka funderska ama nimanka companyga iskale equity-ga ayaa lacagtooda halkaan ka siin karnaa uga siin karnaa dahabshiil bank waxaan loo yaala halkaan aan ku arkaynaa halkaasuu noo soo qorayaa oo dahabshiil bank waxaa noo taala intaas hadda waxaan qof baan wax siinaynaa oo la yidhaahdo caasho ayaan lacag rabaa inaan siiyo ama waxaan siinayaa qof la yidhaahdo gabadh baan siinayaa la yidhaahdo oo milkiilaha companyga ahayd fahmaan maxamuud waxay dhigatay awal intaas hadda waxaan bangiga uga soo qaadaynaa $1 baan siinaynaa oo aan u diraynaa marka $1 ayaan halkaan gelinayaa oo amountiga halkaasaan gelinayaa halkaana waxaan gelinayaa si fiicanna waa aragtaan waa muhiim jiddan qalinkeennii ayaan soo qabsanaynaa wax yar iga raali noqda qalinkeygii waa kan waa soo qaatay halkaan baan okay kusoo dhahay marka qalinkeyga maadaama aan soo qaatay halkaan waxaa igu jirta balancegii baa igu jiro dahabshiil lacagtii inoo taale bangigeennii lacagta aan dhigana 50,000 fahmaan maxamuud barre waa qoftii companygaan lahayd waxay u taala minus 15,000 $50,000 oo minus ku jira u taalo
waayo lacag baa laga jiray lacagta lagu furay wey transfer memo ayaan halkan ku caddayn doonaa waana arki doontaan si fiican marka saan inaan u sameyno waa muhiim jiddan oo aan lacagta qaabkaan isaga dhex xawili lahayn QuickBooks anagoo ku dhex jirna ayaan qaadanaynaa waana fudud yahay sidaan u qaadan lahayn waana iska xiraynaa qalinkaas marka halkan $1 baan rabaa inaan ku bixiyo halkan memo waa ku caddaynayaa marka transfer fund memo ku cadday buu ku leeyahay haddii la doono memo waa halkan raacinayaa haddii la doono waan ka tegayaa marka waxaan dhihi karaa waa iska tirtiri waa lacag aan u xawilay qofkii milkiilaha ahaa aan lacag ka siisay qofkii milkiilaha ahaa waxaan ka saaray bangigeena waxaan ka saaray bangiga waa kaa memigaas ayaan ku caddaysay fankilos lacagtaa marka way u tagtay iyadii $51 bay u noqotay sideen ku ogaanaynaa report waxaan tegaynaa banking baan tegaynaa transfer fund baan tegaynaa marka lacagtii hore hadda aan soo sameynay baan dib eegis ku sameynaynaa saasay ahayd $51 bay noqotay lacagtaan awal $50 bay ahayd $1,000 aan bixiyey $51 bay u noqotay tanna waxaa kasoo go'day $1,000 kasoo go'day halkaan memo waxaa lagu caddeeyey waa lacagtii aan u xawilay qofkii milkiilaha ahaa waxaan ka saaray bangiga ayaan halkan ku caddeeyey saa waa loo siin karaa qofka lacag wax weynna macno weynna ma sameynaysa taas marka tan waxaan ku barannay sidii aan u baran lahayn make deposit fund make deposit qasnada deposit waa qasnadeena dahabshiil waa inay kusoo dhacdaa qasnadan kale waa QuickBooks ayaa isticmaala marka payment soo qaada qasnaday kugu dhici lahayd wey marka paymentiga waa kana qasnadii waa ka bedeli karnaa waxaan ku integrayn karnaa inaan dhaho qasnadeena waxaa nooga dhigtaa waxaa nooga dhigtaa oo paymentiga kusoo dhaco toos ha kusoo dhacdo dahabshiil waan dhihi karnaa anaga haddii aan doono marka barashada casharadan oo taxana ayaa inoo socdo waana muhiim jiddan QuickBooks inaan ku baranno si step ah marka cashirkii 13aad ayaan sii maraynaa cashirkii 14aad baan usii gudbaynaa waana muhiim jiddan casharadan waxaa loo soo koobaya waxay tahay qofka inuu si fiican u arko cashirkan waxaa loo soo koobayaa hal mar haddii la wada sameeyo qofku ku wareeriyaa mar la yiraahdo transfer mar la dhaho banki bank check baan jarayna waa lagu wareeriyaa marka mid walba gaarkiisa iyo xaalkiisa lala arkayaa marka mid walba xaalkiisa iyo gaarkiisa inaan aragnaa ayaan rabaa waana muhiim jiddan taasi marka waxaan iskaga soo noqonayaa page-kaygii maadaama aan sameeyey taas haddii cashirkan degdeg uu noqdana idinka ayaa kusoo celshan doona IT certification video training iyo account certification video training waana direct number baa lala soo xiriiri doonaa waana muhiim jiddan taasi marka cashirada barashada aan ku baranayno account software QuickBooks waa muhiim jiddan dadka ganacsatada ah iyo dadweynaha Soomaalida ganacsiga ku jira ayuu aad iyo aad ayaa ku maareyn kara ganacsigooda single user ha ahaado ama master user ha ahaado QuickBooks waxaa loo isticmaalaa in xisaabaad hufnaan lagu shaqeeyo kambaniyada waaweyn master user-ka iyo kuwa yaryar oo aan master user-ka ahayn double transaction-ka sida lacagta loo geliyana waan arki doonaa cashir ayaan ku qaadan doonaa marka waa muhiim jiddan taasi cashiradii barashada ayaan weli ku guda jiraaye waxaan soo imaanayaa page-keennii Somali Star Online Training waxay kaa qabtiri doontaa English and Computer Teaching waana direct number waa la soo xiriiri doontaan Yahoo iyo Gmail kii aad doontaan waana engineer Maxamed Axmed Bare casharadiisii taxanaha ahaa sidaa darteed marka waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fi amaan allah